kulankan ay gada jirka u yeesheen wafdi ka socday golaha guurtida iyo oday dhaqameedka gobolka Awdal waxa uu daaranaa dhinaca nabadgelyada waxaana kulankaasi furay barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal madaxa wafdiga ka socday guurtida Maxamed Xareed Rooble ayaa isaguna carab dhabay ujeedada ay u socdaan waxa ay tahay أسير قانوني وجد بتاعنا نبض وناقة شرف ورصور إنه بدل هوية ما تكلم وطن إنه كان وايد وطن إنه نبغى قوة مرامو إسكندرين ولا تمين إسكندروني ولا جيب وإسكانين ولا سوق السوري وإنه وحكي السوق بسنة إلى أن تنوصل صار أي نوصل سنة ولا qaar ka mid ah oday dhaqameedyada gobolka Awdal ayaa iyaga la fahanteedu aan gafin halka ay ka taagan yihiin ilaalinta nabadgelyada gobolka Awdal iyo Sirf waa halkii tiirka nabadgelyada Soomaaliya lagu asaasay nabadgelyaha laga Soomaaliya looga bixin sida Awdal iyo Sirf tahay waan ka wada shaqeynaa diyaar baan u nahay waxaan rajaynaynaa in doorashadaas si fiican ay noogu dhacdo waxaan se ka codsanaynaa hay'adda commission iyo xukuumaduna inay iyaguna cadaalad ku shaqeeyaan waxa weeyaan nabadgelyada waxa waxyeelo waa cadaalad darro lagu ku fiirsado ayuu nabadgelyo darro ku dhaqaaqay maanta sa kala saaro timaadeenayna intaasoo u baahanay adkeyn baa doonaya qorayaasha adkeyn laga doonaya dadka wax garka adkeyn laga doonaya lagu adkeeyo oo leeyahay halkaa weey halka wax ka badbaado halkaa weey insha Allah nabadina qaaqul lama jeclin diyaarna uma yihiin laakiin waxa hadday maamultahay hadday doonayaasha tahay nabaddu cidii ilaalin lahayd hawshii ay ku geli lahayd marna la yidhi kama Abdul Ali Yusuf, Hon Cable TV, Borama.